bismillahi raxmaani raxiim daawada soo dhowow meel allaale iyo meesha aad dunida kaga sugan tahay waxaan ku hayaa barnaamij aad u xiiso badan waan ugu magac daray ogow oogadaada arag awooddaada waxaan jecelnahay annagu haddaan aadamanahay inaan ku noolaano nabadgelyo wanaag horumar aana adduun iyo aakhirana guulaysano waa arrin bini aadamka uu ka siman yahay laakiin waxaa la isku dhaafay sidii lagu gaari lahaa waxaana ka bilaabataa waxaa la yidhaahdo qofka inuu barto naftiisa uu barto qaabka ilaahay u sameeyey iyo awoodda uu siiyey iyo awooddiisa sida u isticmaali karo iyo waxyaalaha ku kaalmayn karaa guusha uu raadinaya adduun iyo aakhiraba marka barnaamijkan oo ugu magac daray ogow oogadaada arag awooddaada ayaan macnihii aan ku sharaxayaa kuna tibaaxayaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysato waatanaa qaybteedii koobaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال كسو دوادا برنامج كمان قولين ميل والبا دونيدا كداوانيسان برنامج كمان قولين وبرنامج aan kusoo qaadano murtidaasoo godlay samaanka yaga aana ka helna dhiirigelin ina dhaqaajisa oona gaarsiisa meelo dhaadheer ee noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhira labadaba maanta mawduuca aan ka hadlayna ciwaankiisu waxa weeyaan ogow oogadaada arag awooddaada walaalayaal waxaan ognahay aadamaha waxaa abuuray rabbigeen wuxuuna ka abuuray aabbaheen aadamna wuxuu ka abuuray carro hadduu abuuray aabbaheen aadan kadibna wuxuu ka abuuray hooyadeen xawaa kabacdi wuxuu u sameeyey nidaam iyo system uu bini aadamka ku baaho oo uu dunidan maaragtay isaga uu oday uu ku noqdo ilaa inta uu rabbigeen subxaanahu wa tacaala dunida uu ka duubayo oo wakhtiga ugu talagalay uu ka gaarayso marka walaalayaal systemka bini aadamka rabbigeen u dejiyey waa system cajiib ah rabbi baana doortay wuxuuna ka doortay waxyaalaha kale uu abuuray oo dhan wuxuu ka doortay bini aadamka si gaar ahaaneedna aabbaheen aadam wuu karaameeyey wuxuuna ku karaameeyey ruuxdiisa markii uu rabbigeen uu abuurayay aadam oo carrada ka abuurayey buu wuxuu yidhi wanafakhtu fiihi min ruuxi anigaa ruuxdeeda ku afuufay waxayna tusinaysaa baa la yidhaahdaa sharaf in bini aadamka rabbi sharaf gooniya uu siiyey ruuxdaana waxaa keliya oo la siiyey waa bini aadamka weye oo noolaha kale lama wadaago naf bay leeyihiin laakiin ruux khaasa oo ruuxda rabbi ah ma laha waxa weeyaan marka bini aadamka isagaa marka waxaa la siiyey inuu adduunkan uu wadee ka noqdo oo maamulo uu ka noqdo marka rabbi wuxuu sameeyey laba shay oo muhiim ah buu bini aadamku u sameeyey kow wuxuu u sameeyey jir aad u qurux badan oogo qurux badan oo maaragtay awoodo badan ay ku kaydsan yihiin buu rabbi subxaana wa tacaala uu siiyey wuuna nooga sheekeeyey waa isaga rabbi dhahaya laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim macnihii wuu toosiyey marxaladaha ay soo martayna iyadoo faahfaahsan rabbi wuu noo sheegay oo suurat mu'minuun buu ku sheegay waa isaga dhahaya walaqad khalaqna alinsaana من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين مركا مرحلة هاس بابن آدم كل سو مرسيي إنو عن روفها كبعد عرفت waxaa ku horeysay inuu macnaheedu min sulalatin min tin dhoobo la soo soocay oo rabbi si gooni u soo soocay in aabbahan aadam laga sameeyay kabacdi markii aadam iyo xaawo la sameeyena in loo sameeyay inay ka abuurmaan oo ka tarmaan candhuuf ee ka tarmaan oo ah candhuuftaasoo system iyo nidaam rabbiga subxaanahu wa tacaala u sameeyay oo inta ay adduunka ka jirayaanna sida ay ku soconayaan marka marxaladaha ay soo martay wuxuu ahaa waa system macnihii cajiib ah oo bini aadamka markaa fiirisid candhuuftaas iyo maaragtay calaqada oo markaa mudqa noqonaysa mudqadii maaragtay oo cad hiliba noqonaysa hilibkii oo maaragtay lafo lagu xiray kabacdina bini aadamkan quruxda leh oo muuqaalka leh baa soo baxay marka waxaa la yidhaahdaa annaga hadda aan maqalno mashiinno macnihii jira oo aan aragno bini aadamka maanta uu sameeyey mashiinka ugu qaalisan oo ugu qiimo badan waa mashiinka la yiraahdo human machine ku waa suncadii ilaahay subxaanahu wa tacaala
sunca gaari kartana ma laha marka waxaa rabbi u sameeyaa la yidhaahdaa 11 system baa loo dejiyey marka waxaa muhiim ah qof kastoo annaga naga mid ah inuu ku baraarugo uu barto human machine-kan isaga uu yahay waxaa la yidhaahdaa bini aadamka maalintuu dhashay oo dhulkan imaaday ilaa inta uu ka dhimanayo oo waqtigiisa uu ka dhammaanayo waxa weeyaan wuxuu ku jiraa socdaal waa safar adduunka dhan baaba ah safar sida rasuulkeena noo sheegayba marka socdaalka bini aadan uu galo waxaa la yidhahdaa waxa ugu fiican socdaalka ah self discovery-ga waa socdaalka ugu suuban ugu sarreeya uguna qiimo badan socdaalkaas self discovery-ga ah waa midka ah inuu qofka bini aadamka horta isaga shakhsiyan uu barto baraaruga uu naftiisa uu baranayo iyo mashiinkan sidoo u shaqeeyo baa waxay keenaysaa inuu ka faa'iidaysto jirkiisa iyo naftiisa oo markaana uu ka dheeraado wax allaale wixii dilaya oogadiisa oo xumaan u keenayna uu ka fogaado wax allaale wixii oogadiisa wanaajinaya oo hagaajinaya inuu samaysto si uu tamarta iyo awoodda rabbigay ku keydiya isaga uu si macnihii dhammaystiran oo uga faa'iidaysto oo buuxda marka waxaan rabaa inaan aan ku baraarugno oo aan isku baraarujinno bal horta oogadaan rabbigeenna siiyey inaan ogaano qaabka u shaqayso because waxa aan aaminsanahay oo aan ogahay qof kastoo bini aadam ah waxaa ilaahay ku abuuray inuu jecel yahay inuu wax noqdo inuu macnihii uu hormaro inuu macnihii uu guul uu ku noolaado inuu nabadgelyo ku noolaado inuu raaxo uu ku noolaado waxaa marka nasiib darro ah dad badan waxa ay jecel yihiin oo ay dareemayaan ma raadinayaan mana raacayaan sidii ay ku gaari lahaayeenna macnihii waddadeeda ma marayaan markaasaa waxaa dhacaysa qofkii inuu qof macnihii aan macnihii misalign ah oo maaragtay isaga dhanba macnihii kala dheelitira inuu noqdo oo mar walba marka dhib adduun aan ka bixin ilaa uu ka dhinto tii alla oga imaato in yar oo bini aadamka ayaa ku baraarugtay inay human machine-kan ay bartaan systemka u shaqeeya ay bartaan si hadhow dib nooga imaan doontaba kabacdi bay fuuli ka faa'iidaysteen oo markaa waxay keeneen inay iyaguna badbaadaan naftoodana badbaadiyaan horumar kalena ay sameeyaan marka oogada bini aadamka wuxuu ka koobmaa la yidhahda labo waa maado iyo wuxuu ka koobmaa iyo energy maadada jirkeenaan ah oo sa hadda sheegna ilaahay uu noo abuuray oo systemkii hadda aan soo marnay oo rabbi uu noo abuurayna aan macnihii aayadda hadda aan sheegnina macnihii ay noo qeexday marka waxaa la yidhaahdaa human systemka iyo nidaamka rabbi bini aadamkan jirkan u sameeyey wuxuu ilaa iyo waxaa weeyaan 11 systemada walaale haddaan fahanno waxaa keenaysa inaan daryeelka nafteenna say tahay macnihii aan uga faa'iidaysanno oo dhibaato badan oo nagu imaato oo walwal badan iyo fakar badan iyo cabsi badan nagu imaata ama ma ahane waxyaalaha positive-ka ah oo aan weyno sida maaragtay galgacaylka iyo nabadgelyada iyo maaragtay wax isasiinta oo wax la isku macna iyo dulqaadka iyo kaasinyada waxyaalaha wanaagsan oo aan macnihii aan helno iyo waxyaalaha xun aan ka fogaano waxay keenaysaa in horta bal systemka aan fahanno because waxaa la yidhaahdaa bini aadamka rabbi wuxuu ka abuuray dhulka saan sheegna carru ka abuuray ilaahay wuxuu yidhi wallaahu anbatakum min alardi nabaatan dhulka ayaa idinka abuurnay meel kale ilahay wuxuu ku leeyay suuratu taha minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa haddii marka dhulka laga abuuray maadadii laga abuuray bini aadamka iyadii buu ku noqonayaa culammada waxay ku tafsiiraan macnihii wallaahu anbatakum min alardi nabaatan uma yuciidukum fiiha yuciidukum macnihii markaad dhimataan iyadii baa nil ku celinayaa kabacdina iyadaa nil ka soo saaraya sidoo kale waxay dhahaan inta adduunka uu saaran yahay dhulkii laga abuuray aadamaha iyadii buu u noqonayaa oo noloshiisa dhan iyada ku xiran tahay oo wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu xiran lahaa iyo maaragtay meeshii hoyga uu degi lahaa iyaduu ka samaysanaya iyaduu ka helaya marka waxaa la yidhaha dhulka wax maadada uu ka samaysan yahay iyo jirkayaga maadada uu ka samaysan yahay similarities badan baa ka dhexaysa oo jirkayagaana ma jirayo hadduusan dhulka ku xirnayn marka dhulka baa naloo mariyay maalan dhulku jirkeena wuxuu u baahan yahay minerals iyo vitamins mineralska oo dhan waxay ka imaanayaan dhulka mineralska jirkayaga ahaan macnihii dhagxaan ma cuni karo oo iyadoo dhagxaana ma cuni karo laakiin ilaahay wuxuu noo soo marsiiyey mineralka jirkayaga u baahan yahay oo la'aantiis uusan jiri karin
wuxuu noo soo mariyey waxyaalaha aan cunno oo dhulka macnihi nooga soo baxa iyo xoolaha oo iyagana intay daaqaa soo cunaan iyagana maaragtay noo soo mariya oo aan ka helnaa sidaas maalan calciumka oo kale oo lafaha iyagu hadda u baahan yihiin bini aadamka systemada laga sameeyey oo 12 ka mid tahay maalan system waxaa loo sameeyey maxaan ku idhaahdaa skeleton system ah waxaana loo sameeyey maalan lafo waxaa la yidhahdaa bini aadamka weyn oo adhaltiga ah wuxuu ka kooban yahay 206 lafood buu leeyahay oo qiimo weyn de jirka iyaga dhan macnihii qofka taagitaanka uu taagnaanayo oo awood uu taagan yahay shakligiisas guud waxaa istaajinaya waa lafahaas weeyaan sidoo kale waa protection bay u yihiin maaragtay ilahay wuxuu noo sameeyey saab hadda maalan saab feeraha iyagaa dhan hadda maaragtay waa saab bay yihiin waxyaalahay protection u ilaalinayaan waxaa weeyaan major organiska waaweyn ayay ilaalinayaan oo macnaha maalan hadda sida sambabadii oo kale wadnihii oo kale beerkii macnaha keliyihii waxaas dhan buu ilaalinayaa sidoo kale maaragtay waxay noo yihiin maaragtay joints meel aan maaragtay mar walba markaan wax soo qabsanayno markaan soconayno markaan ordayno waxaasoo dhan macnihii lafahaas ayaa noogu jiraan maaragtay waa marka calciumkaas hadda dhulka marka macna ka soo baxa waa dhagax weeye dhagaxa laakiin anagu ma cuni karno jirkayga ma cuni kara laakiin system aan cuni karna waxa weeye inuu noo soo maro maalan dhirta dhulka ka soo baxdo oo kale ama saa sheegnay xoolahaas oo kale ay noo soo baxaan oo markaa jirkayga lafaha iyagu ay quwad yeeshaan waxaa kale oo ilaahay lafahaas markuu sameeyey iyagana uu sameeyey hilib iyo murqo muscleskaas marka iyaguna waxaa la yidhaahdaa ilaa iyo 700 oo masal ah murqo ah oo la magacaabay ayaa jira oo bini aadamku uu leeyahay murqahaas marka haddaynan mineralska u baahnaayeen iyo vitaminska u baahnaayeen aysan helin qofka bini aadamku noolaan maayo mana socon karo marka iyadana waxaan ka helaynaa dhulka ayaan ka helaynaa murqahana waa aragta hadda wax markaan qabsanayno marka aan soconayno hadalka aan hadlayno haddaynan murqaha iyagu ayna shaqaynayn maaragtay ayna shaqaynayn ma hadli kartid waxba ma qabsan kartid ma socon kartid marka iyaduna waa system labaad oo rabbi subxaanahu watacaala bini aadamka u sameeyey oo maaragtay bini aadamka dhanba miisaankiisa waxaa la yidhahdaa xaaf ku dhowaad waa murqihiisa miisaanka aan leedahay lafaha hadda joogitaanka aan leedahay waxaa kuu samaynaya waxa weeyaan murqahaas waxaa kaloo loo sameeyey wax la yidhahdo integumentary systemku waa oogadeennan ilaahi subxaana wa tacaala uuna siiyey waxay noo tahay protection oo waxaa hadda maalan skiinka integumentary systemku waa system dhan oo isku xiran macnihii waxaa ka mida oogadaada jirka cidiyaha waxaa ka mid ah timaha waxaas waxaa la isku yidhahdaa integumentary systemkaas marka waxau hadda maalan jirka yaga oogadaan rabbi wuxuu nooga dhigay ama maqaarkan wuxuu nooga dhigay macnihii mid protection noo ah oo bannaankaa wax kaa soo geli kara ma laha haddii macnihii skiinkan aan la dilaacin ama la damage garayn oo marka hadhow infection iyo waxyaalo kale ku imaan inta uu saa kuu yahay wax korka kaagama imaan karaan sidoo kale wuxuu kuu yahay dareemayaashaada midka wada waay sensationka waxa aan dareemayno kuleelka qabowga waxaas aan dareemayno midka kuu haya isaga weeyaan sidoo kale storage kuu yahay jirkan 3 leeyar ama lakab baa main ah oo waaweyn oo primaryga ah 3daas waxay ay ku hayaan macnaha ogadaadan bay ku hayaan waxa ay kamida qaybaha marka ay ku qabanayaan kamida mesela qayb storage ka kala hadda ogadaan qofka skin raa ku dhacdo oo kale waa dhibaato waay wuxuu ku kaydinayaa biyihii wuxuu ku kaydinayaa saliid uu jirkaada u baahan yahay buu ku kaydinayaa oo mesela hadda waqtiga kuleelaha ah oo aad u kulushahay jirkaada wuu qaboojinayaa biyo buu soo saaraya dhidid ku soo baxayaan system ilaahay cajiib oo noo sameeyey waay waqtiyada maalan ay qabowga uu jiro aad u daran yahayna macnihii kuleel buu ku siinayaa wuxuuna marka dambe ku leeyahay orod meel maaragtay kuleel ah gal warkaas waxaa raasanaysaa gaarigaada hiidka ama gurigaada galaysaa si hadhow jirkaada recover u sameeyo oo maaragtay u isticmaalo marka hadda 3 system baan kuu sheegay ogsoonow systemada markaan isla faano guud waxaan u tegi doonaa awoodeenna because inaan ogadeenaan ogaano muhiim waay dad baa iskiinkoodaas dilay oo markaa qofka uu wax cuno ama wax walba cunto ama cabto ogadaada way saameynayaan hadhow qofka waa khayirmaya dhibaatooyin badan baa ku imaanaya cudurro badan baa ku imaanaya laakiin dhulkan ilaahay noo abuuray waxa ka soo baxa oo wanaagsan oo organiga ah macnaheedu haddaan cunno oo aan helno waxaan helaynaa caafimaadkayga kabacdina awooddeeda waan sheegi doonaa hadhow awoodaha noo imaan doona baan kaga faa'iidaysanaa si fiican intaa ilaahay oogama harin haddii lafihii lagu sameeyey
oo hilbihii laguu sameeyey oo murqihii laguu sameeyey oo macnihii oogadaadii la daday oo waxa lagu sii busto oo kale hadda maalan annaga waxaa xirnaa biniaadamka mid waxaa xiranaysaa funaanad shaati baa ka dul xiranaysaa jaakaa ka dul xiranaysaa intii oo kale laguu sameeyey markaasoo haddana mid walba wax gooniya uu kuu qabanaya adoona ka warqabinba oo maaragtay si automatic ah system rabbaaniyo socdo weeyaan waxaa ka midoo laguu sameeyey nerve system wax la yidhahdo waxa weeye waa macnihii system la shaqeeya maskaxda lana shaqeeyo oogadaada oo dhan marka maskaxda waxaa ku jira macnihii neuroniska waxaa la yidhahdaa 100 billion neurons waa maskaxdeeda cajiibka waxyaalaha systemka ilaahay uu nagu sameeyey human machine-ka waa cajiib weeye maskaxdan inta macnihii waayaro ku xiran waa yaabaysaa kayballo baa saa u dhex daadsan waxaa lagu leeyahay neuronisku qaybna waa isku xiran yihiin oo waa isku xirxiran yihiin qaabna waa kala go-an yihiin wireless bixitaa macluumaad ku kala qaadanayaan si cajiib ah markaase waxay ku kala qaadanayaan de waxyaalo oo bini'aadamka xitaa weli uusan gaarin oo de seconds wax ka yarba wax ku kala qaadanayaan macluumaadka ku kala qaadanayaan neuroniska waxaa macnihii ay soo dhex maraan keebalada nerveska sidii keebalkii oo kale waaye neuroniskuna nerveskaasi ku dhex jiraan keebalo saa u daadsanoo jirkaada tin ilaa cirib soconaayo weeye oo maaragtay socda oo maaragtay adiga kuu caawinaya macluumaadkaada iyo dareemayaashaada waxaad dhan kula wadayo waxaa kaloo jira iyagana oo jirkaada ku jira maaragtay endocrine systemku wuxuu kuu sameynayaa waa qanjiro waxaan hadda u tegi doonaa awoodaha bini'aadamka uu leeyahay waxaa la yidhahda ilaa wuxuu leeyahay 7 xarumood oo tamarta bini'aadamka ay ka imaato 7 xarumood aan hadhow kuu sheegi doono xarun walba qanjiro gooniyaa jirta qanjirkaana ama galaniska la yidhahdo galaan walbana hormones u gooniya bay soo saartaa markaasay waxay u diraysaa selliska iyada ay rabto jirka dhan bay horta ku sii deynaysaa hormoneska marka ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa iyo qudradiisa selliska markaas macnihii macluumaadka u baahan baa qabsanaya selliska baa iyagan macnihii shaqo gelaya waana arrinta macnihi annaga kobcitaankayaga inuu bini'aadamka koro waarat marka saa u dhalatid ilaa intaa ka weynaanaysid waa macnihii xarumaha qaabilsan weeyaan galaniskaas baa macnihii developmentigaada iyaga macna qaabilsan sidoo kalena maaragtay protectionkaada iyo maaragtay waxyaalo badan kuu qabanaya waxaa kale oo protection noo ah protection weliba cajiiba uu rabbigeena siiyey immune systemka yaga immune systemku wuxuu sameeyaa waa maalan ciidanka ku ilaalinaya waaye jirkaada wuxuu u yahay basically ciidanka ku ilaalinaya cadow walba oo invader ah oo jirkaada soo gala baa la dagaalamaya marka jirkaada dhan inay bacteria iyo cudurro kale iyo dhibaato imaadaan wuu la dagaalamaya marka waa system isagana macnihii jirkayaga ka celinaya wax alaala wixii jeermiska ah iyo infectionada ah oo maaragtay rabbigeen uu protection ooga dhigay macnihii uu ku difaacayo waana ciidan si automatical u shaqaynaya oo macnihii qaybo kala duwan bay leeyihiin kuwo waxaa jira macnihii ciidamada iska caatada ah oo yaryar oo jirka soo galana cells yaryar oo macnihii oo cunaa jira oo maaragtay maalan hadda sida white cellskoo kale ah baa cuna ama macnihii ayaa cuna white cellskaas wixii markaa wax weyn ah oo major ah oo imaadana waxaa jira iyagana maaragtay cells kale oo arrintaa u jooga oo markaa imaanaya oo intay maaragtay uu systemku activate gareeyo dagaalamaya oo jirkaad maaragtay difaacaya jirkaan marka iskama jirayo waxaa kaloo loo sameeyey sidii uu ku sii jiri lahaa oo ah inuu wax cuno oo wax cabo oo markaas awooddiisa iyo noloshiisa ay ku jirto hadduu jirkaan waxna cunin waxna cabin macnihii ma awood ma yeelanayo mana dhaqdhaqaaqayo mana soconayo oo xubnihii hadda aan soo sheegnay oo aan ka soo hadalnay waxba ma qaban karaan marka waxaa laguu sameeyey digestive system oo macnihii jirkaada wax allaale wixii aad cunto waxyaalo mararka qaarkood adag oo adiga ilkaada dhibaya laga yaabo intay calooshaada galaan haddana system baa jira ilaahi subxaana wa tacaala ugu talagalay oo waxaa intay burburiyaan oo baduuqaan oo ka dhigaan qaab uu jirkan uu qaadan karo oo wixii markaa uu rabo oo u baahan yahayna jirkii bay ay ku noqonayaan oo isagaa markaas macnihii isticmaalaya oo as energy oo kale u isticmaalayo wixii uusan rabina wuxuu u dirayaa macnihii wasakh ahaan u bixinaya oo iska bixinaya ama ha ku baxdo macnihii qaab dhidid ha ku baxdo ama ha ku baxdo maaragtay qaab macnihii qaab hadda system kale noo soo socda oo macnihii kaadida oo kale
taasna waxaa qaabilsan systemka kale oo kan noogu xiga oo ah urine systemka isaguna waa qayb rabbi bini'aadamka ugu talagalay oo keliyuhu ay qaabilsan yihiin maalan oo hadday macnaha inta keliyaha kuu shaqaynayaan waxa waay noloshooda waa jirtaa hadday kaa fariistaan oo maarata system kale lagugu xirin waxay kuu noqonaysaa macnihii waxaad la-aanta aad noolaan karin organada waaweyn bay ka mid tahay marka urine systemkaas isagana waa system isagana cajiib ah oo loo baahan yahay qofka waxaa cunaayo iyo waxa uu cabayo inay noqdaan wax jirkiisa caafimaad u leh waa system kale uu rabbigeen subxaana wa tacaala na siiyey waxa markaa cuntid waxaa u baahan tahay energy-ga waxyaala qaarkood waxay ku soo baxayaan neefsashada iyadana rabbi wuxuu u sameeyey macnihi respiratory system oo xaggii neefsashada oo aad oo la shaqeeya macnii sanbabada aad oo la shaqeeya oo macnihii runtii iyaduna la'aanteed qofka hadduu oxygenka macni uusan helin ma sii jiri karo ma noolaanayo wax yar macni daqiiqada ma noolaan kartid marka iyadana systemkaa kale buu ilaahay kuu sameeyey oo neefsashada oo hawada ah waxaa kaloo lagu sameeyey circulatory systemka isagana wadnuhu la shaqeeya wadnuhu waa xubinta ugu weyn waayo oo jirka macni ku jirta isagaana xubnahaadaas kale dhan maaragtay dhiigga u diraya oo maaragtay dhiigga sifeynaya oo wadaya marka walaalayaal sistemada aan sheegnay waa system internal ah oo gudahayaga ah waxaad moodaa annagu waa iska soconnaa nimcadan weyn ma dareenno waxaa laga yaabaa dadkeenan kuma baraarugsanaa arrinta iyada ah waxaan aad oo la yaaba aniga waddamada hadda aan ku noolnahay oo westernka ah waxay aad ooga shaqeeyeen human developmentiga inuu qofka bini aadamka la kobciyo oo la baro oo qofka maarata self awareness-kiisa ama self knowledge waxa la yidhaahdo qofka isaga la educate gareeyo educationkana waxay ka bilaabanaysaa self wax walba waxay ka bilaabanaysaa self markii bulshada individually uu baraarugsan yahay oo waxyaalaha dhibaatada ku keenaya hadda waxaan ka soo hadlay waxyaalaha jirkaada macnihii protectionka u ah maalan nadaafadda oo kale waxyaalaha diintayada aad u amartay qofku inuu clean yahay oo macnihii isaga uu nadiif yahay gurigiisa ha ahaado jikadiisa ha ahaato gaarigiisa ha ahaado inuu nadiif yahay oo jirkiisa maaragtay wax dhibaataa aysan ku imaan waxyaalahan systemka hadduu ku baraarugsan yahay wuu ogyahay maxaa lafahaada u fiican maxaa murqahaada u fiican maxaa macnihii wadnahaada iyo maaragtay beerkaada iyo keliyahaada u fiican maxaa maaragtay jirkaada iskiinkaada u fiican markaas qofka hadduu waxaa ogyahay jirkan si u shaqeeyo ogyahay waxaa imaanaysa inuu naftiisa profession uu ku noqdo professionkana waxay keentaa qofka inuu isaga isdilin oo dhibaato isku keenin isagoo iska warqabin waxaan maalan qofka marka waxa qofka waa professional way macnaheedu wuxuu yaqaanaa shaqadan uu qabanayo dhibteeduna wuu yaqaanaa dheefteeduna wuu yaqaanaa marka wuxuu sameynayaa inuu dheeftiisana uu ka faa'iideysto dhibtiisana iska ilaaliyo marka jirkaadan isaga waxa hadda maalan aan cunno oo kale aan sheegaynay iyada maxay kuu noqon kartaa cudur kugu noqon karta ilaa cudur oo dhan wuxuu ka bilowdaa le calool waxaan cunaysid marka hadduu qofka uusan ku baraarugsanin xubnahan iyo systemkan iyo nidaamkan waxaa keenaysa qofka inuu iska socdo wuxuu rabo iska cuno wuxuu rabo iska marsado saa awgeed dad qaarkood waxaa arkaysaa dhibaatooyin badan oo maanta isbitaalada loo tago wax yar baa keeni kara qof baa maalan hadda jirkiisa ilaahay suu abuuray buu isleeyahay ka bedel isagoo ilaahay qurxiyey oo hagaajiyey macnaa jirkiisa ku kalsooneen oogadiisa ku kalsooneen markaasay waxay keenaysaa inuu naftiisa intuu gabo uu maaragtay qurqurxi is yidhaahdo markaasay reaction badan ay ku keento oo dhibaato badan ay ku keento oo oogadiisi dhanba ay bedelanto oo khayaranto waxaa loo baahan yahay qofka wax allaale waxa uu cunayo iyo waxa uu cabbayo inuu iska ilaaliyo wax uu cabbayana ay noqdaan wax jirkiisaas macnihii uu qaadan karo oo xalaalna ah waxyaalaha xunxun oo maaragtay jirka doorinaya systemkan dhan isku kharibaya inuu iska daayo ha ahaato maalan daroogada la cunoo kale ama ha ahaato maalan waxyaalo dadka qaarkood u arkaa inay waxay iska banaan yihiin maalan sigaarka oo kale shiishada oo kale waxyaalaha kale maaragtay alkoholka oo kale waxyaalahaas kale qofka way khayiraan qaadka oo kalea ka mid a qofka oogadiisay khayiraan shakhsiyaddiisay khayiraan waxay ka dhigaan qofka inay awooddii ay ka hadli doono dhan inay macnihii ay maaragtay ay dhinto amaba macnaa awooddiisa ayba dhinsiisaba oo qof macnaa wax mataraa uu noqdo oo noloshiisa uu waayo marka ogsoonow waxaa la yidhaha cudur bini aadamka ku dhaca laba meeluu ka imaadaa cudur walbo bini aadamka ku dhaca wuxuu ka imaadaa waxa uu calooshiisa uu geliyo iyo waxa uu caqligiisa geliyo thoughtiska fakarka waxyaalaha kugu imaanaya oo maskaxdaada gelaya
iyo waxyaalaha calooshaada gelaya labadaas baa dhibaatada badan kaaga imaanaysa cadow kugu darna kuwaas way labadaa marka haddaadan taxadarin oo aadan ka fiirsan waxaa imaanaysa inaad noloshaada weydo khasaarana hadhow ay qofku maartay ku imaato dhibaato badan ay ku dhacdo dhibaatadaas marka hadhow wax macnihii ay dhibayso waa un adiga marka hadhow waxay noqonaysaa inaadan naftaada waxaadan ahayn aadan macna eedeen macnihii naftaada keliya aad eedeyso marka walaalayaal taas haddaan intaa uga baxno waxaan gelaynaa qaybteena labaad oo awoodda ah